intada waxa inoo eegay wariye Cabdi Fataax Axmed tababar lagu sii xoojinay garaadkooda aqooneed ee hogaaminta hoose maamul qabaaleedyada ee hoos yimaada degmada Raas ee gobolka Afdheer ayaa ka furmay madasha kulamada ee isla degmadaasi waxaana tababarkan isugu yimid xubno dhan 165 markaasina ka kala socday 15 santar ee isla degmadaasi Raaso isla markaana ujeedada tababarkan loo qabtay hogaaminta hoose ayaa ku saabsan kobcinta garaadkooda aqooneed ee hogaaminta hoose taasina ay tahay mid tilmaamaysa kor u qaadida garaadkooda siyaasad fulineed si loo gaaro yoolalka la higsanayo waxaana ugu horreyn furay oo ka hadlay madaxa arrimaha xisbiga gobolka Afdheer mudane Maxamed Cabdullaahi Xuseen tababarkan waxa looga goleeyahay ama qiimihiisu waxa weeyaan waa dardargelinta shaqooyinka salaaligeed ahmiyada ballaaran ama qiimaha ugu ballaaran ee maanta 68 degmada tababar noocan oo kala hogaaminta hoose ee degmo qabileeyada waa mid uga socdo weey marka waxa loo baahan yahay muddada tababarkani uu soconayo in ay hogaamintu si dadaal iyo taxadar dheeraad ah inay ula socdaan casharada la qaadanayo sidoo kale waxa isna dhinaciisa ka hadlay markaasina u soo bandhigay ahmiyada uu leeyahay tababarkan gudoomiyaha degmada Raaso mudane Bashiir Cabdi Saahid waxaan idin leeyahay shaqooyinkii aad hayseen aad u hayseen qabaleega aad u hayseen bulshada waad ka timaadeen waxaad uga timaadeenna ma aha wax kale waa inaad tababarkan qaadataan marka waxaan leeyahay tababarkan muddada uu socdo in si ka go'naansho hogaaminta ugu sarreysa wadanka hogaaminta ugu sarreysa deegaanka hogaaminta dhexe oo degmooyinka ay soo qaateen waa buugtii aanu qaadanay anagu dhinacooda waxa iyaguna tilmaamay sida ay ugu faraxsan yihiin ka soo qaybgalayaashii tababarkan waxaan ku faraxsanahay oo aad ugu faraxsanahay shirkan maanta naloo furayo tababarkan naloogu furayo annaga oo heer qabalee ah ilaa iyo heer mandhar u wada joogna heer xisbi aan joogno waxaan ku faraxsanahay aadna ugu faraxsanahay tababarkan oo maanta ka hor naloo furin oo tababar noocan intan la eg aan naloo furin yaan aad ugu faraxsanahay waan uga mahadnaqaynaa haddaba tababarkan ayaa socon doona muddo 5 cisho ah iyada oo lagu baran doono 6 mawduuc oo ay kamid yihiin kamid dhalinta qorshayaasha 5 sano ee kobaca iyo isbedelka labaad iyo sooyaalka taariikheed ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed Itoobiya